haddaan qaybta naxdinta gudamo garoon ku wareegay oon soo kormeerna maanta isaga dhan meel waxaan ka arkay meeshii aanu baawurta dhigan jirnay oo ahayd baarkinkii garoonka istaadio muqdisho gaar ahaan marka kubadda cagta kubadda kolayga iyo dabaasha iyo handballka iyo volleyballka iyo waxaas ay socdaan oo la yiri guriga laga dhisaya runtii naxdin bay ahayd aniga ma aqaan wax dhisaya guriga laga dhisayana ma aqaan wuxuu yahay laakiin waa idaanaqday marka dhulku waa balaarin dhulna waa haysanaa gobolkiina waa inala joogaa cidda maartay dhistay ama dhisaysa ma naqaano muxuu ahaa dhul adduunka in laga waayey meeshan Soomaaliya oo dhan baa iska leh dhalinyarada Soomaaliya iska leh waa meeshii garoomadii ay ku ciyaar lahaayeen waa meeshii ay maartay ku nafis lahaayeen waa meeshii waxa la yiraahdaa isboortiga haddaan waxaan raanaa jir fayow ayaa maskax fayow leh waa meeshii jirka dhalinyarada si maskax fayow oo heeraan lagu baraaran lahaa taasna muxuu ahaa danqashadaasna inaan shucuurtayada muujino waajib bay nagu ahayd oo codkayaga ku darno muxuu ahaa wasiiradda oo maantayto ka hadashay xiriirka iyo madaxda gobolkuna waa nala joogaan oo kelmadooda ka oran doonaan waxa xoogaa wax cajiib ah oo laga xishoodo wax jabhadii ka xishoodeen wax hogaamiye kooxyada ka xishoodeen oo ahayd xilligii burburka ilaa iyo hadda aan taagannahay garoonka istaad muqdisho cidna iskuma dayin inay dhisato ama dhulka dhex samaysato cidna iskuma dayin xilligii 94 aan sheegayo ilaa 2007 shaqaalaha joogay oo xiriirsan kubadda cagta wax siiyo iyo wasaaradda isboortiga ay ka warqabaan waxaa marka wax laga xishooda ah in wixii ka xishoodeen hogaamiye kooxyadii oo ay ka xishoodeen dadkii qabiilada hogaaminaya ama jabhadii intaba aan xilligaas garoonkan waxba gaarin maanta inuu maanta wax gaaro ama la isku dayo ama la hawaysto in dhexdiisa la dhisto xogaa wax laga xishooda foolxumaa waaye sida caadigaana mas'uuliyiinteena sare ee dawladda madaxweynaha barnaamijka ogolaa wasiirada maxay mar walba ku celceliyaan oo difaacaan in wadankeena 100% uu dhalinyaro yahay haddii dhalinyaradii tuuladii loo dhistay laga dhisto xagee dhalinyarada u ciirsanayaan xagee ku ciyaarayaan marka waxaan leeyahay campaignkan wuxuu quseeyaa qof kasta mas'uula haddaan marka nahay annaga xiriirsan kubadda cagta ama isboortigana waxaan cod dheer ku leenahay hal la tixgeliyo waxa ay dawladda ugu deeqday isboortiga Soomaaliya ugu deeqday hal la tixgeliyo dadka faragelina lama yaqaan cid ay tahay dawladdu waxaan leenahay barnaamijkaas hal la farageliyo cidda dhisanaysa dib ha loo fiiriyo sida u jeedin xarunta xisbiga iyo xayndaabka u dhaxeeya garoonka Muqdisho Stadium ama garoonka ciyaaraha Muqdisho waxa ka socda dhismo annaga wasaarad ahaan iyo xiriirada ay qusayso garoonkan waxaan dhowr jeer ka dignay dhismahan oo aan la garanaynin cid ka dhex jeexday dhulkan waa og yahay madaxweynaha jamhuuriyadda waa og yahay ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka waa og yahay gudoomiyaha gobolka dhammaan intii ay qusaysay marka saas daraadeed waxaa la geliyay hakad waxaana la soo cadayn doonaa mas'uuliyaddii dhulkan la jeexay oo garoonka iyadoo aan cidina ogeyn in la soo helo haddii allaha awoodda la ogolaado joojintaas marka waxaa noo xiga wakaaladda oo dhismaha garoonka qayb ka qaadanaysa maareeyaha guudaha nala jooga gudoomiye ku-xigeenkii amnigii siyaasadda iyo gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada xiriiradii ay qusaysay kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud waa joognaa wasaaraddu waa dhan tahay waxaan marka berri laga bilaabo wakaaladdu noo samaynaysaa in ay qaado soohdintan dhexe oo amniga markii hore lagu sugaayay qayb ka qaadanayso waxaana loo wareejinayaa derbiga intaas wixii ka dambeeyana taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo kan gobolka Banaadir ayaa ka mas'uul ah amniga guud ee garoonka haddii Allah awoodda la ogolaado cidii ku soo xadgudubtana ayaga talaabadii ku haboon ka qaadi doona wabillahi tawfiiq insha Allah